gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare senator abshir maxamed axmed oo maanta khudbad ka jeediyey xiritaanka shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dadka galmudug awoodda isugu geeyaan sidii loo dhisi lahaa dekedda magaalada hobyo. gudoomiye abshir ayaa xusay in muhiimad weyn ay u leedahay dhismaha dekedda hobyo dadka degan magaalada iyo guud ahaan deegaanada galmudug, waxaana uu yidhi dekedda hobyo waxa ay tahay muhiima dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo horumarka deegaanada galmudug, waxaana isbedeli doona qiimaha nolosha deegaanadaasi, waxaana abuurmi doona shaqooyin fara badan kuwaasi oo ka qayb qaadan doona yaraynta shaqo la'aanta baahsan ee aqoon-yahanka iyo muruqmaalka deegaanka ku nool. horumarka dhaqaale ee maanta ka muuqda deegaanada deriska la'a galmudug waxaa sabab u ah dekedaha ku yaala oo la hirgeliyey. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta galmudug, ganacsatada iyo dadka kale ee deegaanka ah in ay ka faa'iidaystaan fursadaha maanta taagan oo ay ka mid tahay in dadka deegaanadan ay u heelan yihiin sidii loo abuuri lahaa loona hirgelin lahaa dhismaha dekedda hobyo. sidoo kale gudoomiye abshir maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay in ay kaalinta kaga aadan ay ka qaadato dhismaha lagu hirgelinayo dekedda magaala xeebeedda hobyo, waxaana uu yidhi waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka in ay ka qaadato kaalinta kaga aadan hirgelinta dhismaha dekedda hobyo iyo dib u yegleelidda galmudug cusub oo maanta loo fadhiyo. dhanka kale gudoomiye abshir maxamed axmed ayaa dowladda federaalka ugu baaqay in xayiraada dhanka duulimaadka laga qaado dowlad goboleedka jubbaland, isaga oo xusay in wixii khilaaf lagu dhammeeyo liiska wadahadalka, waxaana uu yidhi sidoo kale aniga oo ka faa'iidaysanaya fursadan waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka in ay xayiraada duulimaadka ka qaado dowlad goboleedka jubbaland iyada oo wax allaala wixii khilaaf lagu xalinhayo wadahadal iyo wadaxaajood, islamarkaasina laga fogaado tallaabo kasta oo ku noqon karta caqabad nolosha dadka degan deegaanadaasi jubbaland. ugu dambeyn gudoomiye abshir maxamed axmed ayaa ugu baaqay waxgaradka dhammaan kasoo jeeda golayaasha shirkan in la iska kaashado nolosha iyo walaalnimada si loo dhiso galmudug cusub oo ay yeelato deegaanadaasi galmudug, waxaana hadalkiisa ka mid ahaa waxaan ugu baaqayaa waxgaradka deegaanada galmudug in ay dadaalkii halkoodii kasii wadaan ayaga oo iska kaashanhaya dhismaha dowlad goboleedka marxaladiisa labaad, islamarkaasina u wada dhaqaaqaya si ay ku jirto midnimo u wada guntanaya horumarka dhammaan deegaanada galmudug. guusha shirkan waxaa lagu qiimayn doonaa sida loo hirgeliyo qodobadii lagu heshiiyey iyo sida ay ugu qanciyaan beelaha kale ee walaalahood ah xoojinta nabadda iyo ku wada noolaanshaha nabad dhammaan meel kasta oo soomaali ay joogto. weli waxaa meel adag maraya isfahanka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo weliba maamul goboleedka jubbaland oo u dhexeeyo khilaaf xoogan, kaasi oo dowladda federaalka ee soomaaliya ay horey u sheegtay in aysan aqoonsanayn doorasho walba oo ka dhacday magaalada kismaayo. intaasi kadib ayaa markii la doortay madaxweyne axmed madoobe lala sheegay inuu yahay madaxweynaha maamul goboleedkaasi jubbaland, ayay dowladda federaalka soomaaliya waxay kusoo rogtay cunaqabatayn ku saabsan xagga duulimaadka dayuuradaha oo ay dowladdu sheegtay in diyaarad oo tegaysa kismaayo ama ka imanaysa ay soo marto magaalada muqdisho ee caasimada dalka. haddaba golaha baarlamaanka soomaaliya ayaa arrintaasi dhexdhexaadin kaga jiray iyaga oo ay sheegeen in diyaaradaha oo la cunaqabateeyay ay culays iyo dhibaato ku geenayso dadka shacabka ah. haddaba xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ah gudoomiyaha guddiga duulista hawada, gaadiidka wadooyinka, dekedaha iyo tamarta ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo istiraatiijiyadda xisbiga UPD ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ciqaab wadareed marsiinayso shacabka ku nool jubbaland. xildhibaan cabdifataax ayaa sheegay in xayiraada dhanka hawada ee dowladda federaalka ay saartay duulimaadka dowlad goboleedkaasi jubbaland in ay tahay arrin ay ka dhalan karto hoos u dhac dhaqaale iyo arrimo bini'aadminimo oo soo wajaha shacabka ku dhaqan deegaanadaasi jubbaland. xildhibaan cabdifataax oo ka hadlaya arrintan xayiraada duulimaadka lagu soo rogay jubbaland ayaa yidhi go'aanka lagu xayirayo duulimaadka kismaayo ma aha mid waxyeelaya maamulka jubbaland balse waa mid ciqaab wadar
wadareed iyo dhibaato weyn ku ahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanadaasi Jubbaland. waxa uu intaasi ku daray sidoo kale waa go'aan astaan su'aaleed saaraya la soo wareegidda maamulka hawada Soomaaliya oo sharcigii sahli lahaa oo hadda hor yaallo golayaasha baarlamaanka iyada oo la garan karo in ay adag tahay in si xirfadnimo leh professional loo shaqeeyo xukuumadda hadda jirta. haddana waa in hoosta laga xariiqo muhiimadda ay leedahay in hay-adaha halbowlaha u ah bixinta adeegyada dowladda dhexe sida hagidda diyaaradaha aan loo adeegsan ujeedooyin ama dana gaar ah oo ay leeyihiin shakhsiyaadka hadda talada haya. waxaan xukuumadda federaalka Soomaaliya ka codsanhaynaa in ay u fasaxdo dadka shacabka ah ee ku nool Jubbaland diyaaradaha iyada oo dhibaato xooggan ay la kulmayaan sida uu sheegay xildhibaankan ahna gudoomiyaha duulimaadka ee baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed in dawladdu ay u fasaxdo Jubbaland sidii diyaaraduhu ay u duuli lahaayeen isla markaasina dhibaatooyinka iyo ciqaabta laga saaro dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada Jubbaland. dowladda Soomaaliya ayaa cadaadiskii ugu dambeeyay saaraysa maamulka Jubbaland iyada oo toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ku xidhay wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland ahaana wasiirka amniga ee maamulkaasi laguna magacaabo Cabdirashiid Janan kaasi oo ay sheegeen in uu doonayo booliska adduunka ee loo yaqaan Interpol. waxa kale oo iyadana xiliga mas'uulkaasi ka hadlay hay-ad u dooda xuquuqda aadanaha taasi oo dowladda ku ammaantay in ay qabatay ninkaasi oo dambiile ahaa. maamulka Jubbaland ayaa waxay sheegeen dhankooda in ay diyaarsadeen 2 diyaaradood kuwaasi oo ka madax bannaan dowladda sameeyna doona duulimaadyo ku saabsan dhinaca Jubbaland una duuli kara wadamada Kenya, Ethiopia iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Puntland, Hirshabelle iyo Jamhuuriyadda iska madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. ilaa iyo hadda waxaa laga dayrinayaa xaaladda dadka shacabka ah ee ku nool magaalooyinka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo kuwaasi oo ay ku adag tahay arrimaha caafimaadka iyo guud ahaanba xaaladaha khatarta leh in ay si dhaqso ah u gutaan maadaama oo diyaaradihii lagu qasbay in ay maraan magaalada caasimadda ee Muqdisho. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare senator Abshir Maxamed Axmed oo maanta khudbad ka jeediyay xiritaanka shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dadka Galmudug awoodda isugu geeyaan sidii loo dhisi lahaa dekedda magaalada Hobyo. gudoomiye Abshir ayaa xusay in muhiimad weyn ay u leedahay dhismaha dekedda Hobyo dadka degan magaalada iyo guud ahaan deegaanada Galmudug. waxaana uu yiri dekedda Hobyo waxa ay tahay muhiim dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo horumarka deegaanada Galmudug waxaana isbedeli doona qiimaha nolosha deegaanadaasi waxaana abuurmi doona shaqooyin fara badan kuwaasi oo ka qayb qaadan doona yareynta shaqo la'aanta baahsan ee aqoon-yahanka iyo muruqmaalka deegaanka ku nool. horumarka dhaqaale ee maanta ka muuqda deegaanada deriska la Galmudug waxaa sabab u ah dekedaha ku yaala oo la hirgeliyay. mudanayaal iyo marwooyin waxaan ugu baaqayaa mas'uuliyiinta Galmudug ganacsatada iyo dadka kale ee deegaanka ah in ay ka faa'iideystaan fursadaha maanta taagan oo ay ka mid tahay in dadka deegaanadan ay u heelan yihiin sidii loo abuuri lahaa loona hirgelin lahaa dhismaha dekedda Hobyo. sidoo kale gudoomiye Abshir Maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in ay kaalinta kaga aadan ay ka qaadato dhismaha lagu hirgelinayo dekedda magaala xeebta Hobyo. waxaana uu yiri waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka in ay ka qaadato kaalinta kaga aadan hirgelinta dhismaha dekedda Hobyo iyo dib u yagleelidda Galmudug cusub oo maanta loo fadhiyo. dhanka kale gudoomiye Abshir Maxamed Axmed ayaa dowladda federaalka ugu baaqay in xayiraadda dhanka duulimaadka laga qaado dowlad goboleedka Jubbaland isaga oo xusay in wixii khilaaf lagu dhameeyo liiska wada hadalka. waxaana uu yiri sidoo kale aniga oo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka in ay xayiraadda duulimaadka ka qaado dowlad goboleedka Jubbaland iyada oo wax allaala wixii khilaaf lagu xallinhayo wada hadal iyo wada xaajood isla markaasina laga fogaado tallaabo kasta oo ku noqon karta caqabad nolosha dadka degan deegaanadaasi Jubbaland. ugu dambeyn gudoomiye Abshir Maxamed Axmed ayaa ugu baaqay waxgaradka dhammaan ka soo jeeda golayaasha shirkan in la iska kaashado nolosha iyo walaalnimada si loo dhiso Galmudug cusub oo ay yeelato deegaanadaasi Galmudug. waxaana hadalkiisa ka mid ahaa waxaan ugu baaqayaa waxgaradka deegaanada Galmudug in ay
dadaalkii halkoodii kasii wadaan ayaga oo iska kaashanhaya dhismaha dowlad goboleedka marxaladiisa labaad isla markaasina u wada dhaqaaqaya si ay ku jirto midnimo u wada guntanaya horumarka dhammaan deegaanada galmudug. guusha shirkan waxaa lagu qiimayn doonaa sida loo hirgeliyo qodobadii lagu heshiiyey iyo sida ay ugu qanciyaan beelaha kale ee walaalahood ah xoojinta nabadda iyo ku wada noolaanshaha nabad dhammaan meel kasta oo Soomaali ay joogto. weli waxaa meel adag maraya isfahanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedka Jubbaland oo u dhaxeeyo khilaaf xooggan kaasi oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay horey u sheegtay in aysan aqoonsanayn doorasho walba oo ka dhacday magaalada Kismaayo. intaasi kadib ayaa markii la doortay madaxweyne Axmed Madoobe lala sheegay in uu yahay madaxweynaha maamul goboleedkaasi Jubbaland ayay dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku soo rogtay cunaqabatayn ku saabsan xagga duulimaadka dayuuradaha oo ay dowladdu sheegtay in diyaarad oo tagaysa Kismaayo ama ka imanaysa ay soo marto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. haddaba golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa arrintaasi dhexdhexaadin kaga jiray iyaga oo ay sheegeen in diyaaradaha oo la cunaqabateeyay ay culays iyo dhibaato ku geenayso dadka shacabka ah. haddaba xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ah gudoomiyaha guddiga duulista hawada gaadiidka wadooyinka dekedaha iyo tamarta ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo istiraatiijiyadda xisbiga UPD ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ciqaab wadareed marsiinayso shacabka ku nool Jubbaland. xildhibaan cabdifataax ayaa sheegay in xayiraadda dhanka hawada ee dowladda federaalka ay saartay duulimaadka dowlad goboleedkaasi Jubbaland in ay tahay arrin ay ka dhalan karto hoos u dhac dhaqaale iyo arrimo bini'aadminimo oo soo wajaha shacabka ku dhaqan deegaanadaasi Jubbaland. xildhibaan cabdifataax oo ka hadlaya arrintan xayiraadda duulimaadka lagu soo rogay Jubbaland ayaa yiri go'aanka lagu xayirayo duulimaadka Kismaayo ma aha mid waxyeelaya maamulka Jubbaland balse waa mid ciqaab iyo dhibaato weyn ku ahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanadaasi Jubbaland. waxa uu intaasi ku daray sidoo kale waa go'aan astaan su'aaleed saaraya la soo wareegidda maamulka hawada Soomaaliya oo sharcigii sahli lahaa uu hadda hor yaallo golayaasha baarlamaanka iyada oo la garan karo in ay adag tahay in si xirfadnimo leh professional loo shaqeeyo xukuumadda hadda jirta. haddana waa in hoosta laga xariiqo muhiimadda ay leedahay in hay-adaha halbowlaha u ah bixinta adeegyada dowladda dhexe sida hagidda diyaaradaha aan loo adeegsan ujeedooyin ama dana gaar ah oo ay leeyihiin shakhsiyaadka hadda talada haya. waxaan xukuumadda federaalka Soomaaliya ka codsanhaynaa in ay u fasaxdo dadka shacabka ah ee ku nool Jubbaland diyaaradaha iyada oo dhibaato xooggan ay la kulmayaan sida uu sheegay xildhibaankan ahna gudoomiyaha duulimaadka ee baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed in dowladdu ay u fasaxdo Jubbaland sidii diyaaraduhu ay u duuli lahaayeen isla markaasina dhibaatooyinka iyo ciqaabta laga saaro dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada Jubbaland. dowladda Soomaaliya ayaa cadaadiskii ugu dambeeyay saaraysa maamulka Jubbaland iyada oo toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ku xidhay wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland ahaana wasiirka amniga ee maamulkaasi laguna magacaabo Cabdirashiid Janan kaasi oo ay sheegeen in uu doonayo booliska adduunka ee loo yaqaan Interpol. waxa kale oo iyadana xiliga mas'uulkaasi ka hadlay hay-ad u dooda xuquuqda aadanaha taasi oo dowladda ku ammaantay in ay qabatay ninkaasi oo dambiile ahaa. maamulka Jubbaland ayaa waxay sheegeen dhankooda in ay diyaarsadeen 2 diyaaradood kuwaasi oo ka madax bannaan dowladda sameeyna doona duulimaadyo ku saabsan dhinaca Jubbaland una duuli kara wadamada Kenya, Ethiopia iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Puntland, Hirshabelle iyo Jamhuuriyadda iska madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. ilaa iyo hadda waxaa laga dayrinayaa xaaladda dadka shacabka ah ee ku nool magaalooyinka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo kuwaasi oo ay ku adag tahay arrimaha caafimaadka iyo guud ahaanba xaaladaha khatarta leh in ay si dhaqso ah u gutaan maadaama oo diyaaradihii lagu qasbay in ay maraan magaalada caasimadda ee Muqdisho.